marka haddii ay suuragalta waxaan rabaa inaan idinla sheergaliyo haddii loo yiraahdo koobtan aan joogo eega waxa weeye airportka internationalka aadan cadda airport ee muqdisho waxaan ka soo duulay Kismaayo diyaarad markaan ka soo degnay anoo happy oo caadi oo keen diyaarad soo raacnay diyaaradda markaan hadda ka soo degnay waxaan u imaaday qalaasi iyo buuq iyo saxmad iyo reeriyo laga nixiyay iyo dad aad noo soo wacayo ninka cali ahaaba dhibaato ku dhacday dhammaan ummadda Soomaaliyeed aad baan idin salaamaya waan idin jeclahay sida hadaad ii diirnaxdeen oo aniga dhibaatadayga ka diirnaxdeenna waad ku mahadsantiin laakiin waxaan rabaa inaan idin sheego aniga dhibaatadayda ma gaarin waan caafimaad qabaa cid ima sumaynin xayi baan ahay nin dhulku sii joogaanahay balaayi iyo baas iyo gardaami iyo balaayana midaan sugayna midaan sugaaya maayo midaan dadku samayn doonaa ugu toona waxaan rabaa markii aan la hadlo dadka Facebook isticmaalaya ama website-yada leh ee linkiga raadinaya dadka website-yada iska leh ee soo qoray cali baa la sameeyay cali baa dhibaato ku dhacday oo Kismaayo lagu waxay imada reer waxaan doonayaa idin sheego warku hadduu been yahay dadka dhibaato baad ku sameeynaysan mooyeen wax faa'iido oo soo wadaan runtii aniga baa istaataabtay oo run moodayba wax ka sheeganaysan dadka xagee joogan marka imise maqaal oo qoraal website-yada la soo diray waxaan rabaa inaan idin sheego anigu waan caafimaad qabaa wax ismeeyeen ma jirto qofku hadduu xanuunsado ilaahay baa xanuunka keena ilaahay baana caafiya laakiin hadduu wax ku gaaro inaad qof bini'aadam iska soo xaraan wax aniga gaaray ma jirto waan caafimaad qabaa waan nabad qabaa 7 cishaan joogo magaalada Kismaayo soo dhaweyn qurux badan iyo muxubiye kalgacal fara badan oo aan la soo koobi karin baan kala soo kulmay dadkayga mana maxaan ku raahday dhibaatana kala maana kulmin sugina maayo waxaan rabaa markaan idin sheego dadku ma wada aha dadna waa dad wanaagsan oo wanaaga ummadda garanaya dadna waa dad xun oo dadka wanaagsan isla socda doonaya inay kala dilaan oo xumaan iyo balaayo ay meesha ka waxayaan waxaan idinka codsanayaa inaad wanaaga faafisaan inaad xumaanta faafinin waxyaalaha Facebook ku soo qorteenna hadda ma aha markii ugu horeysay meeqa jeer hore la soo qoray caldaanta waa la dilo uu dhinto halkan oo ku dhintay war ilaahay baa wax dila ilaahay baa dadka xanuunka ku keena